waa ku salaamay cawaale aad iyo aad u mahadsan tahay booqashada aad ugu soo booqatay xafiiska maanta maanta Jimco ah taariikhdu June 9 2017 run ahaantii shaqada aan qabana waxa ugu badan personal injuries xafiiska maaragtay Toronto ayaa headquarterska noo ah Orawana waa branch marka magaalada Toronto waxaa joogta ama ka shaqeeya 7 ruux oo qaar lawyerin ay yihiin qaarna staff caadi ay yihiin Orawa small staff ayaa jooga ana waan imaadaa hadii jeer lawyer kalena wuu imaadaa waa is bedelnaa marka runtii Nairobi xafiis ayaan ka furnay oo maaragtay lawyerin farm ku shaqeeya ayaa jooga marka service wixii Nairobi looga baahda waan caawinaa dadka especially reer Canada oo maaragtay had iyo jeer u dhoofa Nairobi dana maaragtay culusna ay kasoo galaan laakiin midda hadda noqosaysa magaalada anayku waxaa ugu badan personal injury waxaa weeyaan dhaawac ama xagga baabuur shil ama dhicitaan qofka uu meel ku dhacay isagoo siibtay ama baraf ku siibtay ama qoyaan ku siibtay ama qashin meel laga qaado ku siibtay kadibna dhaawacay maxaa wacay sharciga waddankaanaytu waxaa weeyaan qof kasta oo ama guri leh ama xafiis leh ama meel mas-uula in uu nadaafadda iyo safety-ga shacabka ka adeegana uu ku dadaala haddii maaragtay uu daba marataa qofkii maaragtay ku noqdo dhibaatada dhicitaanka ay keentay in magiisa laga qaaday annaga qaarib wax noo qofka barafu ku kufaya ama ku dhacaya ama ku siibanaya uu jabaya uuna iska soconaya maaragtay wax xaq u raadsanaya ma jiro kama loo baahna because dowladda ama city-ga ayaa maaragtay ay xil ka saaran tahay ama sharciyan obligation korka ay ka saaran tahay in barafka laga qaaday jidadka in barafku uu meesha uu ku dhigin oo noqonin ice haddii cid dhib u geystana city-ga ayaa mas-uulka adigoo ka adeegana maaragtay store ama Walmart ama storedan kale weyn haddii aad ku dhacdid ama meel qoyan aad masid ama qashin aad ku istaagtid oo haddana aad maaragtay dhaawac ka soo gaara qolooyinka maaragtay iskale storekaas ayaa mas-uulka baabuur hadduu kugu dhaca ama adigoo baabuur ku jiro shil baabuur uu dhaco dhibkaa soo gaara haddana xaq baad leedahay dhiig baad leedahay ama mag baad leedahay hadduu ay laguu sii dayay ama accidentally ama intentionally uu eyga dhibaato ku geysta ama ku qaniino ama cunitaanka kuu sameeyay xaq baad leedahay dhiig baad leedahay marka waxyaalahaas ayaan dabagalnaa run ahaantii the last 17 years taas ayaan ka shaqaynaynay oo maaragtay experience iyo aqoon sare aan ku yeelanay particularly aniga marka waxaan kusoo dhaweynaa dhammaan
ummadda ka soo jeeda ama walaalaha Soomaali in ay ka faa'iidaystaan annagoo maaragtay luqadiina kuga adeegayna annagoo maaragtay dhaqanka Soomaaliya in la fahmayna kan dhaqanka Canadian-kana gooni ay noo taho fahanay oo maaragtay isku daynaa in aan iswaafaqsin sababtoo ah qofka Soomaaliya haqiisa wax yar uu ku gefi karaa ama uu ku gefaa tusaale maxkamad haddii aad ka dacwoonaysid oo xaqaada raadsanaysid oo laakiin markaad hadlaysid you don't look the jury in the eye and the judge in the eye oo maaragtay aad maaragtay ka marmeeraysid inaad dhinacyaha firfirisid ama farahaada ku daahdid taa waxay noqon kartaa maaragtay inay u qaataan inaad wax qaranaysid annaga dhaqankeena qofka hadduu aad wejigii ka fiirsan ama indhaha aad ku taagtid waa rude ama maaragtay ama wuxuu shinama marka siduu dhaqanka maaragtay iskiga hor imaansiya waa dareemi karaysaa midda kale dhaawac uusa kusoo gaaray badanaa dadkeena waxay iska aadaan maaragtay herbs ama local medicine ayagoo maaragtay kalsooni weyn ku qaban dhaqtariinta caadiga markii maxkamadda iskugu taga waxa lagu kala baxayo wax lagu kala qaadanayo waa the family doctors and then the experts and the physio all these records are going to be looked marka adigu haddii aad dhaqtarkaada la socodsiinaynin waxyaalaha maaragtay dib kusoo gaaray had iyo jeer inkastoo maaragtay dhibaato culus ay kusoo gaaray haddana haqa ama wixii xaqa hod lahayd si sahal ayay kuu dhaafaan waxaa na soo martay in ruux maaragtay shaqada gabay uu shaqadiisa wadan waayey gurigiis ka shaqaysan waayey xanuun maaragtay iyo impairments la aligeed laakiin maxkamadda markuu tagay maaragtay examinationku lagu sameynayay la weydiiyey kulma kugu dambeysay dhaqtarkaada inaad maaragtay ka caawito dhibaatada ku hayso uu yidhi 6 bilood dhaqtar uma tegin 6 bilood daawo kama soo qaadan oo xanuunkaada sidee waad ku manage garaynaysa wallahi daawada maaragtay counter kasoo iibsanaya ama herbal baan isticmaalay however what this person is saying although it is true there's no record there's no evidence marka danahaada ama xaqaada maxkamadda markaad ka raadsanayso waxa lagu oran show me your pain war adigu xanuunkaada i tus marka run ahaantii xanuun lama arki kara laakiin lawyeriinta iyo maaragtay judges way arki karaan we see xanuun through evidence through medical evidence what you told your doctors what you told the physiotherapists continuously hal mar u tagta maaha marka badanaa lawyeriinta maaragtay Soomaalida ahayn marka loo taga kow qaar horta ma danaystaan no one will take you seriously maxaa yeele wadankii baa sida iska qaab madow mar haddaad tahay no one will take you seriously it's not always like that but a lot of times it's like that maxaa yeele lisma fahmayo lisma afgaranayo lisma dhaqan garanayo so when you go to let's say to a white lawyer where everybody who is working in that office is white then you become the other then the question is can I say who cares about the other marka it's important it's very very important that you go to lawyers and doctors that you have confidence in them that you can tell them u sheegin karaysid waxyaalaha maaragtay very very private
وأنا أرجع داد بدن وما لويرين عدان أما قبيلة كله كسر بدشوا مركاي نوع إيمانان مالتي آدي آد نوف وموحي مالتي قولين كل وشيء كرينو شيء أون توسين كرنا at least waxaad qof kale u sheegi karin haddii aad ii sheegtid kow horta kuwama nacay mana oranayo well waxaan waa dhaqanka madowga ma oranayo I will give you my best advice adigoo maaragtay si gooni maaragtay ama si yasad ahaan maaragtay lagula hadlin on a plain level wixii maaragtay la toosin kara la toosinaya. Now muhiimku waxaa weeyaan oo maaragtay daaran guud iga ah in horta aan develop garayna idea in annaga dhexdeena aan iska adeegano waayo waddanka ayaasan ku dhaqan every society every social group ayaga iska dhex adeegto. For example, Taliyaniga ayaga maaragtay first priority it's Italian businesses, Italian customers, Italian doctors, Italian lawyers, they do business within themselves and other communities as well. The only community that can ummadda horumarka sameynayno ayaga iska dhex adeeganayno waa wax u badan dadka madowga haddii aad maaragtay now gudagal hoosaad u fiirisid unemployment ama shaqo la-aanta waxa ugu badan dadka madowga ama soomaalida ka mid tahay poverty-ga waxa ugu badan dadka madowga soomaalida ay ka mid tahay su-aasha waxaa weeyaan why maxaan ugu liidanaa ummadda kale maka aqli yarnahay maka xoog yarnahay why? The only reason in my view is because it's shaqo ku sinaysa male because kow cid kasta ciddeeda way danaynaysaa will hire Italian people Southeast Asians will hire Southeast Asians and other communities will hire their own. Now annaga business keena haddii aan dhisin marka our children are going to be unemployed by and large. ciyaalkeena shaqalaan ayaa ku dhacaysa walaalaheen shaqalaan baa ku dhacaysa maxaa wacay annaga businesses ama companiyaal ama dhakhtariin ama lawyeriin maaragtay dadka shaqalaysiina ma jirto marka kuweena yar haddii aan maaragtay aan ka wareejinay businesskeena so forever iskuma xukumin in ciyaalkeena ama dhallinyaradeenna shaqalaan ay ku dhacdo so mid annaga aan mas-uulka nahay Soomaa marka anigoo maaragtay gooni ahaan halii tixgelitaa in oranaynin waxaanu leeyahay ugu horreyntii please haddii aad hilib soo gadanaysa ka soo gada Soomaalida hilib iibs haddii aad ticket airline ticket aad gadanaysa kasoo iibsa Soomaalida haddii aad dhar soo iibsanaysa kasoo iibsa Soomaalida wixii aan annaga maaragtay aan hayno iska dhex weynin aan ka doonano qolooyinkan kale ama our other Canadian citizens ama communities ka nala degan laakiin first priority waa in annaga aan idsiina sidii maaragtay aan u abuuri lahayn employment gudaheena. For example xafiiskayga Toronto toddoba waxaa ka shaqayso 5 was Somali, laba, waa dad ajnabi mid African kasoo jeeda iyo mid oo dadkan Asian kasoo jeeda. Still were people of color. Halka Soomaaliya waa ka shaqaysa. At least haddii aan 6 ruux ama 7 ruux oo Soomaali haddii aan shaqaalaynin. You can imagine imisa caruur oo Soomaali oo maaragtay mishaarka ay xafiiskan ka qaataan ama ay Toronto ka qaataan lagu koriyo ama lagu xanaaneeyo so wax maaragtay aan ku faano Soomaali marka ilaahay maaragtay hana tusa
حقا أيان مسكولين هاي حفيز كان وإذين فرين هاي أذين كوالدين فري أنا كنت مركان أن كهلا حفيز كان عن أفري إن أن كافيو dad fara badan oo iga soo dhoofay magaaladan oo Toronto igu yimid oona dad tabar yar sida awgeed waxaan maaragtay go'aan ku gaaray inaan service kalgoon aan ugu keeno marka xafiiskaas sida loo furay adinka waa laydin furan yahay adresska waxaa weeyaan 2 Gurdwara waxaa loo qoray GURDWARA waa Prince of Wales iyo Hunting Club waa meel caam ah Suite 104 telefoonkan waa 6137332844 aad iyo aad u mahadsantihiin daawasho wanaagsan magacaan waa Maxamed Dolly shaqadan waxaan bilaabay oo looyarnimada 2001 marka waxaan leenahay very extensive experience. Thank you. Daman Ramadan Kareem bil Ramadan ya lagu jira idna wayna soo haysaa marka Ramadan Kareem soon wanaagsan ilaahay ha nagu anfaca xilkii waan gudanaynaa marka ilaahay noo barya ilaahay noo idin baryaynaa anaga meel kastaan joogna sida iyo maaragtay nabadgelyo